loogu baaqay bulshaya hayrageeduma bilaabo sarakaca sacab kusoo dhawow janalkeena kubadda cagta sabskraib saar si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee muuqaaladina daawada sheerna hanaga ilmaamina qodobada aad ku maqli doontaan hadduu sareeyo ka dhiga waxaa ka mid noqon doona wuxuu ka yidhi Mauro Icardi kooxda Inter Milan oo hogaaminayo Antonio Conte iyo imaanshaha Romelu Lukaku labada wiil oo dhalay Messi oo u gudoomiyay abaalmarinta Golden Boot hadda hala siiyo Liverpool koobka Premier League macallin hore oo sidaas yiri waa macallinkee kooxda Real Madrid oo warbixin ka soo saartay dhaawac Luka Modric xilli sii kordhaya dhaawacyada kooxda Napoli oo ka dhex aragtay kooxda Barcelona bedelka Kalidou Koulibaly waatay kooxda ka dhashay Premier League la xiriirinayo macallin Jose Mourinho barbaarti la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayrageeduma bilaabo sarakaca kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan oo aan idila socodsiiyo anigoo ah cadceed deeqsiya qodobka ugu horeeya ayaa wuxuu noqonayaa wuxuu ka yidhi Mauro Icardi kooxda uu hogaaminayo Antonio Conte iyo imaanshaha laacibka reer Belgian ee Romelu Lukaku waryaankii hore kooxda Inter Milan Mauro Icardi ayaa sheegay inuu u rajaynayo wanaag oo dhan kooxdiisii hore ee Zidane inkastoo si aan habboonayn ugu biiray kooxda reer France ee Paris Saint-Germain waryaankii hore reer Argentina Mauro Icardi ayaa xilli ciyaareedkan qaab amaah ugu dhaqaaqay kooxda reer France ee Paris Saint-Germain Mauro Icardi ayaa wareysi ku bixiyay wargeyska La Gazzetta dello Sport ee ka soo baxa dalka Talyaaniga wuxuu ku sheegay kama filayn soo dhaweyntan inay sameeyaan doonaan kooxda reer France ee Paris Saint-Germain si fiican ayaan ku bilownay kulankii aynu u baxnay Real Madrid kadib waxaan la kulmay dhaawac fudud ujeedka waa inaan wax walba oo awoodeyda ku soo bandhigaa kooxda reer France ee Paris Saint-Germain kadib wuxuu ka hadlay imaanshaha Romelu Lukaku wuxuuna u rajeeyay inuu guul la gaaro kooxda Inter Milan ee ka dhisan horyaalka Talyaaniga Romelu Lukaku wuxuu imaaday horyaalka Serie A ee Talyaaniga waxayna u badan tahay inuu soo bandhigi doono kooxda Inter Milan waxay u tartamaysaa hanashada horyaalka Serie A ee Talyaaniga kama filayn soo dhaweyntan dhammaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain waxaan u ciyaaray si wanaagsan ujeedka waxa inaan walba u sameeyaa kooxda Paris Saint-Germain intaas kadib Mauro Icardi wuxuu ka hadlay kooxda Inter Milan inuu ku soo biiro Romelu Lukaku Napoli oo bedelka Kalidou Koulibaly ka dhex aragtay kooxda Barcelona kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa la soo warinayaa inay u dhaqaaqayso soo xirigelinta daafaca reer France ee Barcelona ee Samuel Umtiti kaasoo ay u aragto bedelka Kalidou Koulibaly hadduu xidiga reer Senegal u dhaqaaqo mustaqbalka dhow Kalidou Koulibaly waxaa la xiriirinayaa kooxda Barcelona iyo Real Madrid Manchester City way ku jirtaa loolanka loogu jiro Kalidou Koulibaly kooxda Napoli ee ilaa haatan diiday dhammaan xiisaha ugu imaanaya 28 jirka reer Senegal kaasoo lagu qiimeeyo 110 milyan oo gini si kastaba ha ahaatee sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Spain kooxda reer Talyaani ayaa qorshe u dejinaysa haddii uu ka baxo Kalidou Koulibaly sidii ay ku heli lahayd daafaca reer France daafaca keedka galay kooxda Barcelona ee Samuel Umtiti kaasoo ku jira marxalad dambe haddaba Kalidou Koulibaly ayaa lagu wadaa inuu ka dhaqaaqo garoonka São Paulo ee ka ciyaarta kooxda Napoli waxaana xiisaha ugu horeeya u sameynaya kooxda macallin Zinedine Zidane oo hogaamiye Real Madrid xidigii xulka qaranka Faransiiska ee Samuel Umtiti ayaa lagu wajahayaa inuu u wareego kooxda kubadda cagta ee Napoli si ay Barcelona u hesho daafaca xoogan ee reer Senegal ee Kalidou Koulibaly labada wiil oo Messi dhalay ee Thiago iyo Matteo oo u gudoomiyay abaalmarinta Golden Boot-ka kabtanka kooxda Barcelona Lionel Messi ayaa loo caleemo saaray abaalmarinta xilli ciyaareedkan kaasoo ugu guulasha badnaa Lionel Messi ayaa abaalmarintan ku guuleystay markiisii saddexaad xirfadiisa kubadda cagta asigoo dhaliyay 36 gool waryahanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi
ayaa abaalmarintu wuxuu ku garaacay laacibka kooxda Paris Saint-Germain iyo xulka Faransa ee Kylian Mbappe. Messi wuxuu ku garaacay abaalmarintan weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain Kylian Mbappe oo dhaliyay 33 gool. weeraryahanka Sampdoria oo dhaliyay Fabio oo dhaliyay 26 gool. kabtanka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa ku guuleystay abaalmarintan markiisii lixaad ee xirfadda kubadda cagta wuxuuna kaga sareeyaa xidiga ay kubadda cagta zaydka ay ugu xifaalfatamaan ee Cristiano Ronaldo kaasoo loo caleemo saaray 4 jeer ee horay. Messi iyo Matteo iyo Thiago ee wiilasha uu dhalay Lionel Messi ayaa abaalmarintan u gudoomay aabahooda inta lagu guda jiray xalfadda lagu qabtay maalinta Arbaca si markaana ay koob joog u haayeen qoyska Messi iyo sidoo kale saaxiibadiisa Barcelona sida Luis Alberto Suarez iyo Jordi Alba. waxaa sidoo kale xalfadan goobjoog ka ahaa madaxweynaha Barcelona Jose Mario Bartomeu. sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa xalfadan Arturo Vidal kale goobjoog ka ahaa saaxiibadiisa kale ee Barcelona. waatee kooxda ka dheesha Premier League ee la xiriirinayo macallin Jose Mourinho. kooxda kubadda cagta ee Tottenham ee ka dheeshay horyaalka Premier League ayaa la xiriirinayaa inay soo qaadato macallinka howlgabka ee Jose Mourinho. waxaa sii kordhaya wararka la xiriirinayo macallinka Tottenham hogaamiye waqti xaadirka ee Mauricio Pochettino in laga diri doono garoonka Isbaariska kadib natiijooyin hoose oo ku hogaamiyay kooxda Isbaariska. sida la soo warinayo wargeyska Soccer Link, kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa la xiriirinayaa in Jose Mourinho si uu ugu noqdo macallin ay doonayso. macallinka Mauricio Pochettino ayaa ku sii jeeda waqooyiga magaalada London kadib Tottenham ay la kulantay natiijooyin hooseeya. waxayna Tottenham u dhaqaaqaysaa macallinkii hore ee kooxda Manchester United ee macallin Jose Mourinho iyadoo u aragto bedelka tababaraha reer Argentine ee macallin Mauricio Pochettino. macallin Jose Mourinho ayaa ku xiiseynaya inuu macallinka reer Argentine ka bedelo shaqada uu kooxda Isbaariska ka hayo si uu u noqdo macallinka koowaad ee kooxda Isbaariska ee ka dheeshay horyaalka Premier League. kooxda Real Madrid oo warbixin ka soo saartay dhaawaca Luka Modric xilli hordhaca oo la ogaaday muddada uu maqnaan karo. xidiga khadka dhexe Real Madrid ee Luka Modric ayaa dhowr isbuuc ka maqnaan doona garoomada kadib markuu dhaawac soo gaaray. Luka Modric ayaa dhaawac ka soo gaaray lugta dhanka midiga xilli lagu gujiyo xulka qarankiisa Croatia iyo dhigooda xulka qaranka Wales. warbixin caafimaad oo ay xalay soo saartay kooxda Real Madrid ayaa lagu sheegay in Luka Modric laga helay dhaawac muruqa boodada ah oo weliba calaamada joogta ay ka muuqato. dhaawacaynkan oo kale caadiyan wuxuu u baahan yahay waqti soo kabasho ah ee lagu yaqaano ilaa 3 isbuuc, halka dhaawacyo ay sidoo kale marka qaar u baahan yihiin 6 ilaa 8 toddobaad. macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa sheegay in Liverpool koobka Premier League ay u qalato in waqti xaadirkan la siiyo. macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham macalinka kooxda Tottenham waqti hore soo liiliyay ee Harry Redknapp ayaa sharad ku galay in Liverpool ay ku guuleysan doonto horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, isagoo tilmaamay inay ku habboon tahay Reds in la guddoonsiiyo koobka. Reds ayaa haatan ciyaartay 8 kulan iyo gebi ahaanba badiyay 8 kulan ee ciyaartay. kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City inkastoo 8 kulan oo kaliya laga ciyaaray Premier League, haddana Harry Redknapp ayaa wuxuu kalsooni weyn u muujiyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool xilli ciyaareedkan koobka horyaalka Premier League. haddaba Harry Redknapp ayaa wareysi uu ku bixiyay ku sheegay Liverpool ayaa ku guuleysan doonta hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan. hala siiyo Liverpool koobka Premier League. haatan waxaan sharad ku galayaa inay ku guuleysan doonto kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Harry Redknapp ayaa hadalkaas sidaas ku yiri haddii ay jiraan sharadyo galay ay la galay aniga ayaa u qalma in la siiyo haddii ay ku guuleysato kooxda kubadda cagta ee Liverpool. waxaa sidaas yiri macallinkii hore ee kooxda Isbaariska ee Harry Redknapp. macallinkii hore ee kooxda Isbaariska ayaa hadalkiisa ku sheegay in Liverpool ay u qalanto xilli ciyaareedkan inay ku guuleysato maadaama Liverpool koobkan ugu dambeysay 1990 maadaama magaca horyaalka Premier League Liverpool sidii loogu bixiyayba ay hananeen koobka Premier League. sidaasi waxaa hadalkaasi ku soo gabagabeeyay macallinkii hore ee kooxda Isbaariska ee Harry Redknapp.